بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وانا السلامي كسو دواده حلقه cusub oo kamid ah barnaamijkeeni sirta waxbarashada hore waxaan idin la wadaagay jaamacadaha bilaashka ah aad wax ka dhigan karto adiga oo jooga gurigaaga hase ahaatee arinta muhiimka ah ee loo baahan yahay inaan ogaanaa waxa ay tahay in jaamacadahan ay koorasyada bixiyaan bil walba marka ay bilaabato sida awgeed maanta waxaan idin la wadaagayaa lacag la'aan bisha saddexaad fursado bilaasha oo aad ka faa'iideysan karayso adiga oo gurigaaga jooga kulay luqadaha Soomaalidu ay wax ku bartaani waa luqadda Carabiga iyo luqadda Ingiriiska marka hore waxaan horeysiinayaa luqadda Carabiga marka dambana luqadda Ingiriiska koorasyada kala duwan ee ku baxaya ayaan idin soo bandhigi doonaa xagga luqadda Carabiga haddaynu ka bilowno kooraska ugu horeeya bisha saddexaad ka faa'iideysan karto waxa la yiraahdaa magaciisa waa tadriibul mudarribiin waa tababarka tababarayaasha waxa laga yaabaa in badan in aad ku riyoonaysay inaad noqoto tababare fagaaraha ka hadla oo tababara ardaydiisa ama dadka uu wax barayo maanta marka bishan waxaad ka faa'iideysan kartaa chaniska inaad ka faa'iideysato kooraska waxa uu soconayaa kooraska loo yaqaan magaciisa tadriibul mudarribiin waxa uu soconayaa keliyata 4 week dhammaan marka la isku geeyo saacadaha kooraskaasi uu soconayana waxa weeyaan keliyata 10 saacadood waxaad ka gali kartaa manasada ama website-ka loo yaqaano idraak كورس labaad ee Carabiga ku baxaya bishan waa kooras aad iyo aad muhiim ah waxa magaciisa la yiraahdaa التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج SPSS waxa weeyaan waxa lagu talagalay ardayda research ka sameynaysa inta badan inta anigu jaamacadaha joogay waxyaabaha ugu badan ee ardayda ku adag in arkay waxa kamid ah isticmaalka barnaamijka loo yaqaano SPSS ka bisha saddexaad si free ah hadii aad taqaano luqadda Carabiga barnaamijka free iyo waliba kooraska oo free ayaa aad baran karaysaa waxa uu soconayaa isaguna 4 week waxa aad ka baran doontaa website-ka hore aynu uga hadalay ee Rawaaq kooraska saddexaad isaguna waa kooras aad iyo aad muhiim ah wali waxaanu si daba soconaa cilmi baaristii iyo gaar ahaan ardayda u baahan in ay bartaan research-ka waa maadooyinka ugu adag bay kamid tahay xagga Carabiga iyo xagga Ingiriiska ardaydu marka ay qalin jabinayaan waxa ku adag qaabka loo sameeyo ama qaabka loo qoro research-ka jaamacadda caanka ee jaamacadda Cumaan waxa ay bixinaysaa bishan kooras free oo ku saabsan research methodology oo ku baxaya af Carabiga waxayna u bixiyeen mabaadi'ul bahth al-ilmi afarta weega bishan aynu ku jirno bisha saddexaad ayaad ka faa'iideysan karaysaa haddii aynu bilowno koorasyada ku baxaya luqadda Ingiriiska haddii aynu ka bilowno ardayda barata faculty-ga IT-da bishan waxa ay ka faa'iideysan karaan koorasyo aad u fara badan kooraska ugu horeeya waxa la yiraahdaa magaciisa Python Basics for Data Science waxa bixinaysa shirkadda caanka ee IBM waxaad ka qaadan doontaa website-ka edX kooraska labaad ee ka faa'iideysan karaan ardayda IT-du waxa magaciisa la yiraahdaa The Bits and Bytes of Computer Networking waxa bixinaysa isagana shirkadda caanka ee Google waxaad ka faa'iideyn kartaa inta lagu guda jiro bisha saddexaad ardayda caafimaadka barata bisha saddexaad waxay ka faa'iideysan karaan kooras aad u muhiim ah oo ay bixinaysa jaamacadda Stanford وكورسك الله يقانا medical research saynu ka soo hadalay xagga Carabiga iyo xagga Ingiriiska ardayda waxa aad iyo aad ugu adag research-ka marka ardayda caafimaadkan barata waxaan bishan ku dhiirigelinayaa in ay ka faa'iideystaan fursadda ay bixinayso jaamacadda Stanford kooraska ugu dambeeya bishan aad ka faa'iideysan kartaan waxa weeyaan waxa lagu talagalay ardayda barata business-ka waxa weeyaan waa introduction to negotiation sidaynu wada ognahay wada xaajoodku ama negotiation-ku waxa uu soo galaa dhammaan nolosha qofka bini'aadanka qof ka maarsami karaana ma jiro inuu sameeyo negotiation ama wada xaajo sida awgeed jaamacadda Yale University bishan waxa ay bixinaysaa fursad qaali ah oo aad ku baran karayso negotiation-ka dhammaan koorasyada aynu soo sheegnay waxa aad si bilaash ugu faa'iideysan kartaa bisha saddexaad inta lagu guda jiro March 2020 bil walbana haddii Ilaahay gaarsiiyo waxaan idin soo dhigin doonaa fursadaha waxbarasho ee bannaan ee jaamacaduhu bixinayaan koorasyada haddaba imika aynu soo sheegnay dhammaan linkiyada koorsadaas oo dhan waxaan idin soo dhigayaa channelkayga YouTube-ka qaybta video description-ka waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad YouTube-ka subscribe gareysaan page-ka Facebook-kana aad like siisaan videogana aad sii gaarsiisaan dhammaan asxaabtiina jecel in ay wax bartaan oo ay waqtigooda ka faa'iideystaan